وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد لما أنت تذكر هذا عرقابه أما الرير سناك شرفت البضن وعليكم السلام إياه وقول يا فريق مكة قرآنك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب runtii rag waaweyn baa jooga meesha waan doonayay in mikrofoonka loo dhiibo awaan lay magacaabay kumaan tala gelin maanta haddiise lay dhiibay waan soo gaabinayaa qodobka koowaad waxaan maqlaa dalka waxa ka dhacay waa ogeydeen ADA iyo kuwii ka dambeeyey dagaallo ehliya baa ka dhacay waxaa isdilay dadkii wada dhashay waxaa isdilay inan iyo abtigii waxa wada dhashay inan iyo seedigii waxaa isdilay inan iyo awowihii magacyaa lagula baxay waxaa loo bixiyey mujaahid dadkaa mujaahidka u bixiyey aakhire maxaa u jira aakhire maxaa u jira waxaan leeyahay dagaalkii ehliga ahaa ee dhacay ilaahayow inaga saamax ilaahu noo dembi dhaaf ilaahayow wixii dhacay waxaanu leenahay istakfirallah ilaahu naga saamax ehli baa islaayey ehligii islaayey oo mujaahidka loola baxay waa xaaraan weeye miyaanay xaaraan ahayn xaaraan miyaanay ahayn qolada mujaahidka loo sheeganayo maxaynu nidhaahnaa markaa iyagu maxay yihiin miyaanay dadkii ehliga ahayn miyaanay walaalihii ahayn miyaanay nabtigii ahayn miyaanu awowii ahayn miyaanu habaryartii ahayn miyaan dadkii wada dhashay aanu ahayn ilaahay waxaanu weydiisanaynaa inuu wixii halkaa ka dhacay ka dhaafo wixii muslima ogol ninkii magac ku doonayaa waa jeebkiisa taa halkaasaan ku dhaafayaa tan labaad waadda naga daaya heesta tan labaad shalay halka khudbadaa ka baxay rag hargeysa laga soo diray ayaa ka hadlayey nebigaan ku sallino raggaasi war naga daaniyo baal war mirfoonka jooji maalintii abaaru dhaceen aynu baahida qabnay ee aynu dhibaataysnayn ninkii aan inoo iman oo maanta inoo yimi muxuu doonayaa markii dadkeennu caydhoobay ee aynu baahnayn ee liidanay kii aan inoo iman oo maanta la soo kiraystay muxuu doonayaa waxaanu leenahay iska noqo raalli ahow taa markaan dhaafo waxaynu maanta ku jirraa waa khatinkii u dambeeyey insha allahu ilaahay waxaynu weydiisanaynaa guul war mirfoonka joojiya waryaada war hadal kama dheera war mirfoonka joojiya iyaa waxay lahday waxan may maqlaysaan maanta waxa weeye kubaddii waxaysaa la dhiida waxaa lagu kala dhalinayaana waa doorashada waa fartiinna qof walowba waxaa loo baahan yahay inaad kaadhkaaga adkaysato kaadhka waxaa lagu gelayaa 3 jeer doorashooyinka waa madaxtooyada baarlamaanka dowladaha hoose qof waliba ogow marka ay idin gashaan waxaan dhammaan laga hadlo qof walowba kaadhkaaga adkayso marka ay idin gashaan meesha foodka lagu bixinayo ha allaabina qof walowba kaadhkaaga ha allaabin dib ula soo noqo soo qaado 2 doorashaa ku hadhay yuu kaa lumin calaamadaha waraaqihii waa yimaadeen waxaan rajaynayaa qoladan xisbigu inay bahalihii degdeg u farnaqdo oo laamaha la geeyo oo la geeyo miyiga oo meel walba la geeyo oo goob walba la geeyo oo laga dhaadhaco ayaan rajaynaya dadka laga dhaadhiciyo waraaqaha calaamadooda ha laga fiirsado qof walowba u fiirso calaamadaha yaan la allaabin yaan la seegin ilaaliya baan leeyahay anigu arrintaan ka hadlayaa waxaa ugu dambaysaa
waxaynu rajaynaynaa guul baynu rajaynaynaa ilaahay baynu ka baryaynaa ilaahayna siiyo waxaan la sheegayaa meelkii u loo haysto oo lacag lagu bixinayo oo dadka la dhaarinayo ilaahu dhaartaa dembigeeda waxa nagu yeeli ilaahu dhaartaa dembigeeda waxa nagu yeeli dad lacag la siinayo oo kitaab qur-aana gacanta loo saarayo oo magaalada ka mid ah ayaa la sheegayaa waxaa samaynaya ilaahay miisaanka xasanaadka naartaa ugu daran leh dhaartu waa dhibaato dad islaamaynu nahay inaynu dhaaranno maaha inaynu been ku dhaaranno maaha inaynu runku midnaba waxa weeye dadkaa lacagta sita ee kaarka doonaya ee dhaarinaya dadka ilaahay idinku daro naartaa laa burgumayale naartaa laa burgumayale waxaan halkaya ku soo goynayaa koobi 13 maxay noo balana 13 maxay noo balana 13 maxay noo balana guulaysta